48 saac ee la soo dhaafay kulamo gaar oo ay lahaayeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayay ka soo baxayaan xogo kuwa jaan waxyaabaha ay dhinacyadu isku raaceen ee ku salaysan hanaanka doorashooyinka 2021 ee la doonayo inay qabsoomaan. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo dadaal ku bixinaya qabsoomida doorasho ay dhammaan dhinacyada Soomaalidu isku raacsan yihiin ayaa ka soo laabtay Garowe toddobaadkan isagoo halkaas u tagay sidii uu la kulmi lahaa labada hogaamiye ee Dani iyo Axmed Madoobe oo ka biyadiisan heshiiska doorashada ay hore u saxiixeen bishii Sebtembar ee sanadkii hore. labaduba waxa ay diideen magacaabidda guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed sababo la xiriira cadaadisyo iyo qorshooyin ku wajahan arrimaha doorashooyinka oo ay doonayaan in la fuliyo ka hor inta aysan magacaabin guddiyadan. dowladda federaalku waxay ku eedeysay Axmed Madoobe inuu ku cadaadiska kala kulmayo dowladda Kenya si uusan guddigaas u magacaabin, laakiin Axmed Madoobe taasi waa uu beeniyay. madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo magacaabay guddiyada doorashooyinka ee dhankooda kana soo baxay heshiiska ay saxiixeen Sebtembar sanadkii hore ayaa mar kale dadaal ku bixinaya sida ay Soomaalidu isugu raaci lahayd hanaanka doorashada loogana gudbi lahaa caqabadaha taagan. lafta garaan iyo qoorqoor waxay 24 saac la soo dhaafay kulamo la yeesheen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay ka wada hadleen tabashada ay ku soo arkeen Garowe iyo sida ugu sahlan ee wax looga qaban karo. ila xoogaal oo ka tirsan darafyada kulmay waxay noo xaqiijiyeen kulamada ay ka soo baxeen qodobo ay dhinacyadu isku afkarteen gaar ahaan kuwa lagu xalinayo tabashada ka hor dhamaadka toddobaadkan ay tahay in la dhameystiro magacaabidda guddiyada lagana gudbo caqabadaha taagan. xogta aan helnay waxa ay tilmaamaysaa in madaxweynaha dowladda federaalku aqbalay qaar ka mid ah qodobadii ka yimid dhanka Axmed Madoobe Jubbaland kuwaas oo ay ka mid yihiin in kuraasta beesha Mareexaan ee Gado 3 ka mid ah la siiyo taageerayaashiisa. waxay tallaabooyinka ama macluumaadku cadaynaysaa in Axmed Madoobe doonayo in baarlamaanka federaalka la soo geliyo Cabdirashiid Janan oo ay dambiyo dagaal ku eedeeyeen hay'adaha xuquuqda caalamiga ah gaar ahaan Amnesty International oo dhawaan codsatay in la soo xiro. 3 xubnood ee laga siinayo gobolka Gado Axmed Madoobe waxa uu soo bedelaya sida xoguhu sheegeen 3 xubnood oo hadda deegaan doorasho oo tahay Kismaayo kuwaas oo loo wareejinayo Garbaharey kana soo jeeda beelaha kale ee Jubbaland. arrinta Somaliland oo ka mid ahayd qodobada doodu ka taagan tahay waxay xoguhu cadeynayaan in Cabdi Xaashiga aqalka sare la siinayo 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ee Somaliland ee labada heer ee federaalka iyo dowlad goboleedka taas oo ay darafyada Somaliland ka soo jeeda sida ay xoguhu cadeynayaan wadajir u aqbaleen. eedaha la xiriira in dad ku jira laamaha amnigu ay qayb ka yihiin guddiyada waxay madaxda dowladda federaalku Soomaaliya cadeeyeen in laga saarayo xubnaha shaqaalaha rayidka iyo askar haddii loo helo cadeymo sidaas oo kalena dhankooda laga doonayo Axmed Madoobe iyo Dani inay saaraan xubnaha ku jira guddiyada heer federaal kuwaas la soo magacaabayana laga saara dhammaan cid kasta oo ah inay garab u janjeerto. xoguhu waxay kaloo tilmaamayaan inuu jiro shardi culus oo ay ka hor maalinta Jimcaha marka la dhameeyo qodobadan ay tahay in Jubbaland iyo Puntland ay soo magacaabaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed 8 xubnood ayna soo fasaxaan 8 xubnood ee guddiga doorashooyinka heer federaal oo wax ka bedel lagu sameeyay lagana saaray la taliyaasha Dani iyo sidoo kale xubnaha shaqaalaha rayidka ee Axmed Madoobe gaar ahaan hanti dhowrka. kasokow 4 qodob ee hadda horumarka siyaasadeed laga sameeyay ayaa kuwa laga aqbalay wali dhanka dowladda federaalka waxaana la aqoonin jawaabta ka imaan doonta Puntland iyo Jubbaland iyadoo macluumaadku cadeynayaan in hore u soo jeediyeen qodobadan inay doonayeen tanaasulka ka yimid xagga fiila Soomaaliya iyo dhexdhexaadinta Axmed Cabdi Kaariyaha Galmudug waxa garab socdo qorshe kale oo ay abaabulayaan qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya Puntland iyo Jubbaland oo ahayn waqtiga la dilo lana gaara dhamaadka bishan Janaayo si loo muujiyo in dowladda federaalku ku fashilantay qabsoomida doorashooyinka iyadoo qorshahan ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah dowladaha daneeya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. qoorqoor waxaa la filayaa inuu mar kale wada hadal la yeesho Puntland iyo Jubbaland isla markaana la fuliyo dhammaan qodobadii ay ka aqbaleen dowladda federaalka isagoo hadda muujinaya dadaalkiisa ugu badan ee qabsoomida doorashada waa madaxweynaha Galmudug. dhinaca kale guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa gaaray Baydhabo iyadoo ay baarlamaanka maamulkaasi isku diyaarinayaan toddobaadka nagu soo wajahan soo saaridda xubnaha ugu horeeya aqalka sare ee Soomaaliya
waxaana baydhabo laga dareemayaa loolanka doorashada. waxaa la filayaa 48 saac kadib in la soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare, taasoo ka dhignaan doonta inay bilaabato doorashadu haddii lafta gareen uu bilaabo soo saaridda liiska musharaxiinta.